yahan dagaalama reer buu dagaalamaya wuxuu haystaa reerka kale haday dad badan ka laayeen inay guuleysteen iyagoo faraxsan bay soo noqoneen maxaa qabateen waa jabinay buu leeyahay reer hebel xabad kama saydin reer hebel hadii aakhira loo diro miyaa la guuleystay reer hebel hadaynu aakhira u diro ma guuleysanay يعني dadku waxay garan waayeen wixii loo noolaa hadaf ulxayaa la garan waayay waxa loo nooliyaa la garan waayay waxa wax loo baranayaa la garan waayay waxa loo guursanayaa la garan waayay waxa loo joogaa la garan waayay wax oo dhama haday lilaahi yihiin iyo ilaahay tiisa wax idin gaarsiinaya wa fuztu wa rabbil ka'bah saxaabigu sheegay ninkii midida la galiyay waranka la galiyay saxaabiga geeriyooday wuxuu yiri fuztu ورب الكعبة وأقول استيبولي ربك كعبة لما كنا عرطيه وأنا للدلي ولي بدل غدر يبا للدلي يعني دل خيامة ديك ورا نمانو تمادو ويمرك ورا وحكوش يقان وأدبت النصيحة ودا كتلين يسي ومرك أدو تمادو مدينتو حق دبك عمرو ورنكو قليو هذا الله يتولى نمك هو خيامية ونمك هو يدكرين لكن هنا وحو أركيي nolosha wixii uu raadcaynayay inuu helo shahaada saadaradeed ma eegin qoladan khiyaamaysay iyo makriga la sameeyay iyo waxaan oo dhameeyay muuqana waxa uu muuqatay halku uu socday wuxuu arkayba inay dariiqii uu soo gaabiyeen jannada loogu socday meel dhow inuu ka talaabsaday saadaradeed buu wuxuu lahaa fuztu wa rabbil ka'bah dhalinyaro waxaan idin sheegayaa marka ina guulaysataan iyo ina guul daraysataan waxay ku xidhantahay hadafka aad xadidateen wax noolaada ma yahay oo cimri loo bixiyo oo waqti loo lumiyo mise maaha hadduu waxa qiimaha leeyahay markaad gaadho waad guulaysatay haddii aanu ahayn waxa qiimaha leh markaad gaadhaan buu habaan mansuura noqonaya ayuma waayaysa wixii marka hore waxa salahayd guul baad xaqiijinaysaa kan Yurub sii rooraya marka uu badda nafta ku halqiyay waxa la guul baad gaadhaysaa laakiin markuu xagga kala tago ayuma bay noloshu cidhiidhi noqonaysaa soo BBC meelaha kama maqashaan mid isagu qantaradii ka talaabo la wareysanayo leh hadaan sidan moodayo way wuxuu isla hadad halkan ka talawdo حاجة كلام لا جنة كحكتور رجيني لعق يا برادة يا برواقة يا ورسدنا أقول بنتي نبلا أقول بيا حكارة حبيس ما بدلين حلقة يا ودتك برينا يدهدان هاي كوي حاجات يسقوا قردارة صار استيمها ورن لكن غير كنا حلقة يا بين كون قفكر ضفتي إمسا دار صار استي توما صار استي سجال بقولي سجاشة كي كلمة يسوي دي سن حاجة كم غيي وكوا هل كان شوقة طبعا كم بدمياني دارة دسن halkan jooga dadka halkan degan toba kamid oo daara dhistay ma jiraan waan talaabin ba ka badan kuwa halkan jooga inta daara dhisteen ba waxay ka badan tahay in xagga tagtay daaraha dhisatay waxaan uga jeedaa haddaad xataa soo dhisato soo godka gelimaysid maxaa ka dambeeya noloshu waxay qiimo ku leedahay in la fahmo waxa loo nooliyay قالدا قار بدن با maanta way istilaan waliba groupka istila waxa ugu badan tabaqada sare tabaqa alkaadixa ma aha dadka istila waa kuwa waxaysta waa injineerada iyo professorada iyo dhakhaatiirta iyo maalqabeennada waa kuwa dadka istila dad maqasho Yurub waa la istila dadka istila waa kuwa maxaysatadu isma dishay inta badan waayo waa mashquul ba maxay isu dileen waxay moodayeen inuu guul yahay ba markay gaadheen buu dhadhan sameyn waayay waxay moodayeen guul ayaa markay gaadheen ayuu macno u sameyn waayay habeen dhaweyd baan dhakhtar wuxuu lahaa waxaan dhalinyarada markaan nahay buu yiri wax baro wax noqo cayn kan noqo dhakhtar noqo surgery wixii baanu noqonnay dabeetana markaan wixii noqonnay waa Yurub noloshii waxay noqotay buu yiri in lagu yiraahdo intaan jimcaha soo galo ilaa isniinta inaan dhakhtarka ku jiro waan waqti aad seexata lahayn waxba lahayn saacad kasta lagu toosinaya soo kac beeshan baa la keenay mid baa sakaraada mid baa cayn kana maxaan ku sameeynaa
dhowr iyo 30 saacadood umaad soo fadhiyaysaa hadhow markaad noqoto waxaad noqonaysaa buu leeyahay adigoo daalan oo naftu ku haysato gurigii hudheelka haddaad tiraahdo wax cun waad ka wahsanaysaa waa daashay waa inaad cunno yaroo intaad gaadhiga sii waddo aad liqi karto waayo wuxuu rabaa sariirta hadduu gaadho inuu istuuro kadib markaan muddo waday buu yidhi baa lacagtiina dhadhan samayn war waxaanaad u nooshay waa maxay waxaan uu nool yahay ee uu intaasoo sane wuxuu soo baranayay ee doctoorka u soo noqday ee qalliin u bartay ee mutakhasis u noqday ayaa markii uu gaadhay dhadhan samayn waayey waayo hadafkaa qaldan wuxuu noolaa baanu garanin tacab unbuu ka sii qaadayo daal iyo inuu seexan waayo dabeetana wixiiba intuu iskaga yimi uu meelahan yimi waxaan uga jeedaa iminka waxaad is leedihiin waxbaa maqan haddaad lacag badan hesho maxaad samayn lahayd aad baad wax u cuni lahayd caloosha wax badan ma qaado maa lacagtu kuu badato intanaad iminka cunto ka badan ma qaado badan haddii lagu ridana way xanuunsataa oo dhiikar iyo macaan iyo kolestarool iyo baliya baas baa ku dhacaya dabeetana waxaa lagu odhanaya haddaad rabto inaad noolaato wuxuu dhan waa inaad ka yaraysaa idan maxaad ku samayn daashay oo naftaadii waxay u baxday in lacag badan la helo lacagtii badnayd markii la soo helayna wax macnay samayn weyde hawl badan unbay keensatuun iyo inaad dadka la tukan kari weydo markaas salaada soo galbo 10 albaabka sukiisii taagto aad sidii wax waalan albaabka dambe ka boodid inta waxaysato u fiirsan markii masaajidda soo galaan degdeg bay kaga baxayaan waayo tobanba meelaha inta naftaa la isugu keenay idan noloshiiba aduu intaad aayarkabaha ka qaataad halkaa ka baxda cidina kuma daba socoto soocayha maa wax ku boodar garaynaya iyo wax ku dhibaya ma aragtid